بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. داوديال كسو دوادا برنامج كمان قولين ميل والبا دونيدا كداونيسان. برنامج كمان قولين وبرنامج aan kusoo qaadano murtidaas oo gool samaan kayaga aan ka helna dhiirigelin in dhaqaajisa oo na gaarsiisa meel dhaadheer ee noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba. maanta mawduuca aan ka hadlayna ciwaankiisu waxa weeyaan qaybtii labaad dhacday hadaadan dhiman ka dhaqaaq. qaybtii labaad dhacday hadaadan dhiman ka dhaqaaq. walaalayaal qaybtii koobaad waxaan ku soo qaadanay oo aan ku soo qeexnay dhibtu inay dhab tahay oo ay dhacayso. waxaan sheegnay qof kastoo bini aadama maalintuu dhasho oo uu dhulkan imaado ilaa iyo maalinta uu dhinto oo tii alla u imaato inuu qaybtiisa ka qaadanayo oo uu noqonaya kii dhadhamiyaa dhibta waxaan dhahnay waa macnihii qaanuun rabbaaniya oo rabbigeen subxaanahu wa tacaala adduunkan u qorsheeyey qof walbana uu qaybtiisa ka qaadanayo. waxaan dhahnay waxaa muhiima inuu qofka bini aadamka ku baraarugo horta inay dhibtu dhacdo qaanuun rabbaaniyan ay tahay. marka muhiimadda waxaan dhahnay inuu qofka uu ogaado uu barto dhibaatadu hadday dhacdo inuu ogsoonaado qaababka ay qofka ku saamayn karto. waxaan soo sheegnay inay laba qaabood qofka ku saamayn karto. qayb waxaan dhahnay waa qayb physical ah oo qofka ku abuuraysa physical challenge taxaddi ama baratan waxay ku keenaysaa inuu qofka ay xadido dhaqdhaqaaqiisa xagga jirka ah. taasna waxaan dhahnay qofka bini aadamka wuxuu ka qaban karo ma laha aan ahayn inuu qadarta rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku sabro uu ku dulqaato laakiin uu ogsoonaado hadduu nool yahay oo caqligiisa iyo noloshiisa ay jirto waxaa xadidi kara inay tahay naftiisa oo keliya. marka waxaan dhahnay physical challengeskaas waa mid fudud. waxaa ka daran midda kale aan dhahnay psychological challenges bay qof ku abuuri kartaa xagga maskaxiyan ah bay qofku u dhaawici kartaa waana midda ugu daran. waxaana dhahnayna rabbigeen subxaanahu wa tacaala marka uu bini aadamka uu abuurayba wuu u sheegay arrintaas wuuna ku dhaartay wuuna ku adkeeyey inay bini aadamku dhibaatooyinka ku dhacayaan. qaybtii koowaad baan ku soo qaadanay. qaybteena labaad maanta aan ka hadlayno waxaan rabnaa inaan macnihii aan xoogga saarno oo aan ka hadalno dhibaatadu way dhacaysaa waa ogsoonaanin. qof kastoo bini aadana gaal iyo muslimba wuu qiranayaa inay challengeska iyo dhibaatooyinku ay imaanayaan. waxaa laakiin lagu kala tegey qof kastoo bini aadana sida uu cabiranayo oo uu macnihii u fasiranayo dhacdadaas markaas isaga haysata iyo tilaabooyinka uu ka qaado. qofna way dilootaa oo dhulkay dhigtaa qofna fakar iyo firfircooni cusub buu la imaadaa uu kaga baxo dhibaatada markaa taagan. marka qaybteena labaad waxaan xoog ku saaraynaa maanta inaan horta ogsoonaano sababta ay ku imaadaan dhacdooyinkan. sabab bay waxba leeyihiin rabbigeen wax walba uu sameeyey sabab buu u sameeyey iskama samaysmayaan oo iskama imaanayaan. dhacdo walbana waxaa ku jirta dheef qofka bini aadamka markaa isaga ha fahmo ama yuusan fahmin sida gadaal nooga imaan doontaba. marka waxaan leenahay aan xoogga saaraynaan maanta sababta ay ku imaadaan. sidoo kale waxaan kuu sheegaya insha allahu tacaala aan ku siinayaa dhacdooyinku dhinacyada ay kaaga imaan karaan. marka aad ku baraarugsanaatid dhinacyada ay kaaga imaan karaanna waxaan kaloo markaan ku siinayaa xalkii aad dhibaato walbo aad ku xallin lahayd oo aad oga bixi lahayd biidni illaahi tacaala. marka walaalayaal waxaan leenahay horta ogsoonow wax walba waxay leeyihiin waqti ay dhacaan iyo sabab u dhacaan. wax walba waxay leeyihiin reason sabab ay ku dhacaan iyo season xilli ay dhacaan. bini aadamka marka maalintuu dhasho uu dhulkan yimaado baa waxaa hor timaadaa la yidhahdaa laba arrimood. mid waa mida waxaa la yidhahdaa opportunities fursado baa hor imaanaya oo adduun cusub buu yimid. fursadaha marka waxay la imaataa la yidhahdaa challenges taxadiyaad. marka qofka bini aadamka mar walba xeer walba uu joogo laga bilaabo infansiga marka uu bini aadamku markaa dhashaba ilaa iyo adult huurkiisa ama uu macnihii qof elderly oo weyn uu ka noqonayo oo duqa uu ka noqonayaba waxaa hor yaala xilli walba uu nool yahay macnihii fursado uu rabo markaa inuu gaaro uu qabsado uu helo iyo fursadahaas macnihii challenges ay wataan
oo qofka bini aadamka ilaahay uu ku abuuro inuu baratamo oo tartamo oo wax noqdo oo asaagii ka fiicnaado oo meel sare uu gaaro waxaa kale oo jirta waxa la yiraahdo obstacles iyada waxaa ka dhashay waxa la yiraahdo difficulties ama crisis caqabadaas baa waxay keeni karaan dhibaatooyin ama ma aragtay musiibooyin waaweyn oo qofka bini aadamka curyaamiya oo dhibaato ku keena marka waxa la yiraahdaa human life stages bay maraan marxaladay maraan markuu qofka bini aadamka mesela dhasho xaaladda marka uu ku sugan yahay isaga challengeska haysta waxa weeyaan siduu ku fariisan lahaa siduu ku socon lahaa siduu luqadii ku baran lahaa environmentkii ku baran lahaa saasoo kale maaragtay arrimahaasaa hortaagan markuu mesela uu caruur u noqdo oo infant stage uu ka soo gudbo oo xagga child markaa lagu magacaabi karo ilma uu noqon yahay ilaa uu ka gaaray da'da 12aad oo kale isagana markaas inuu dadka uu dariska uu barto iskuulaadka uu barto maaragtay environment uu barto public relations waxaas binaadam ku mashquulsan yahay marxaladda oo teenage la yiraahdo ama maaragtay muraahaqada oo qofka marka uu teenska galo 13 ilaa iyo 19 uu ku gaarayna waxa caqabad ku noqota oo hortaagan waxa la yiraahdo identity crisis shakhsiyadiisu raadinaya qofka uu rabo inuu noqdo who am I su'aashaas buu challenge iyo lagdan uu kula jira caqabad hortaagan taas waay fursad uu rabo inuu gaarana waxa waa inuu qof noqdo oo magac yeesho oo muuqaal yeesho waxyaalo ay raadiyaan waay saa ogeed waxa arkaysaa dadka ee teenagerska ah waxyaalo waxa ku dhacaya peer pressure dadka loodkiisa ay isku filka yihiin buu marba dhinac isku raacayaan oo marba waxbay wax ku dayayaan maalinba meel bay ka dhacayaan waa qof markaa ilmihiina waa ka tegey qof weyna ma noqon jirkiisii waa isbedelay wiil hadduu yahay codkiibaa bedelmay murqaa u soo baxay hadday gabar tahay maaragtay caadadeedii bay heshay maxaan ku idhaahdaa muuqaalkii haweennimo ama haween bay yeelatay iyadoo laftigeeda markaa waxay raadinaysaa shakhsiyaddii ay noqon lahayd bay raadinaysaa marka waa arrin marxalad bini aadamka soo marta oo markaa hortaagan taa markuu ka gudbana wuxuu gaarayaa inuu markaas uu calaaqaadka relationshipka uu galo oo uu galo ilaa uu ka gaaro 40 wuxuu galayaa xarago iyo xudxudasho iyo shukaansi iyo guur iyo waxyaalahaas ilmo dhalow iyo wax tabac iyo markaas buu galaa taas intuu ku jirana waa qofka markaas waxa la yiraahdaa fursadaha hortaagan waxa waaye inuu muuqaalkiisa uu hagaajiyo magaciisa uu hagaajiyo reer uu yeesho hanti uu yeesho opportunities fursado noocaas oo kale hor yaala sidoo kalena caqabaad baa hor imaata iyo difficulties uu ka hor imaanayo waxyaalahaas uu qofka ku yidiloonayo oo uu rabo waxa la yiraahdaa 40 ilaa iyo 55 waxa qofka ku imaada fursado markaa wuxuu noqon karaa inuu dadkii shalay isaga ama uu la soo koray ama uu dhalay oo soo koray hadduu qofka 40 gaaro ilmihiisi waa la eegeen hadduu ilaahay ilmo ubad uu siiyo laakiin waxaa noqotaa la yiraahdaa waxaa dhaca stage wuxuu soo maraa la yiraahdo middle age crisis dhibaatooyin baa ku imaada waxa la yiraahdaa qofku wuxuu fiirinayaa 20 sano la soo dhaafay hadduu qofka 20 sano la soo dhaafay rabbi uu waafajiyo wanaag iyo khayr oo dhibaatooyin badan ayna soo marin waqti badan uu ka soo dhumin oo xaqi dhalinyarnimadii iyo waqti badan ay ka soo dhumin qofkaas markaas qof wuxuu noqdaa stable ah oo waxa la arkaa markaas inuu hogaamiye uu noqdo ama hogaamiyad ay noqoto oo qof markaas ummadii hogaaminaysa ama reerkeeda hogaaminaysa ama maaragtay ummad waxtar ugu leh ay noqoto meesha ugu xoog badan yahay qofka oo xitaa ambiyadu lagu soo diri jiro 40 qofku markuu gaaro waa markaas khibrad ku filan iyo aqoon ku filan iyo maaragtay aqli ku filan iyo kalsooni ku filan uu haystaa oo ummadda ku haagi karo hadduu kuwa dhalay iyo kuwii la dhashay iyo community-giisaba uu ku haagi karo ayuu gaaraa haddii ay markuu fiiriyo uu waqti badan ka soo dhumay oo go'aamo jiljilcisan iyo go'aamo dhib badan uu soo qaatay khasaaro badan ay soo gaareen waqti badan ka soo dhumay aqoon badan uu baran lahaa uu soo baran hanti uu tabcan lahaa uu soo tabcan waxaa laga yaabaa inay ku keento dhaawacyo oonan la arag oo waxa la invisible wounds dhaawacyo aan la arkaynin oo isaga markaa uu arkayo oo mar walba markaa inuu isla hadlo ay dhibaato ku abuurto oo maaragtay ka qoomamo iyo shalay ku abuurto dad baa xitaa mararka qaarkood runtii arrintaas isbitaallo u gala oo dhibaatooyin badan ay ku reebtaa ku saameysaa oo qofkii muraayad wuxuu fiirinayaa gadaashiisa ah oo go'aamo uu soo qaatay dad مثلا ay xiriir macaalaqo xiriir xag guur oo kale uu soo dhaxmaray ama mid ganacsi uu soo dhaxmaray ama mid aqoon uu soo maray oo kuwaasna ay wada xumaayeen marka waxa laga yaabaa qofkii inay xaalad adag ay geliso xaaladaas oo ku keentaba inuu
macnihii gooni intuu noqdo isolation uu galo ee horumarkii mustaqbalka uu ka shakiyo ee ku imaato ama marka taa uu ka gudbo waxaa kaloo ku imaan karta qofkii inuu marka uu gaaro heer macnihii lixdanaad iyo wixii ka dambeeyana markaa qof wuxuu noqonayaa markaas taliye oo dadka la taliye oo macnihii waayeel oday ah ama hooyo macnihii marwo ah oo macnihii khibradda nolosha ay soo martay dadka iyada maaragtay ka dambeeya mar walba u dardaaranta jecelna qofka markuu ageka uu gaaro inuu magacsan iyo warsan uu ka tago uu ka haro marka waxaa la yidhaahdaa xaaladda bini aadamka uu soo maraba iyo marxalad walba uu soo maraba waxay leedahay xaalad walba oo markaa ku imaata fursado hor yaalla uu rabo inuu ka gungaaro oo uu gaaro oo ku guulaysto iyo caqabaad guusha iyo horumarkaas hor istaaga waxayna dadka ku xiran tahay caqligooda iyo maaragtay aragtida ay ku arkaan dhacdada markaa iyo xaaladda markaa uu taagan yahay waana midda rabbigeen subxaanahu watacaala noo dardaarmay oo noo sheegay uu yidhi latarkabunna tabaqan can tabaq waxaa maraysaan macnihii xaalado kala sarsareeya oo midba midda kale ay daboolayso sida dabaqa u socoto oo kale ay socoto waxaa la yidhahdaa xaaladahan waa qofka macnihii marxaladaha nolosha uu imaanayo ama waxaa la dhihi karaaba waa dhibaatooyinka ku imaanayo midba midda kale ay ka sarrayso baa ku imaanaysa ama ha ahaato dhibaatooyinka dhaca adduunka dhacaya oo imaanaya qofka ku imaanaya ama ha ahaato dhibaatooyinka iyo marxaladaha uu qofka soo marayo marka macnihi uu marayo marka ay tiyaal loo imaato macnihi uu dhinto ilaa qiyaamaha oo qofka markaas uu ka qaato macnihii xisaabtiisa iyo meeshii uu rabbi subxaanahu watacaala ugu talagalay uu tago marka waxaan leenahay marxaladahaas qofka bini aadamka awoodihiisu midda aragti iyo midda maxaan ku yidhaahdaa muuqaalba way kala duwanta waqti waxaa jirta uu daciif yahay markuu yar yahay oo kale waqti uu awood uu leeyahay waqti maaragta duqnimo ay ku imaanayso markaas ay xaggiisii macnaa awooddii macnii jismi ay maaragta ay yaraanayso marka xaaladahaas kala duwanna marba xaalad bay u dhiibaysaa suu ku xaliyana ilaahay subxaana watacala awooddeeda wuu siiyey waa miduu rabbigan uu dhahayo wallaahu khalaqakum min dacfin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله وحو ليهي الله إن أبوري مركو إن أبوري حالة وحين يكابر ضعيفة مركو هذا المها سان شيء بيبي وياهي أو ستيبس ومراي واسك ضعيف مروح مرايا قوة وصومر دلنير نمذا ومارت جاريس أو أود وليهي أو مركز أرديو waxaa gaaraysa sidoo kale waqti uu maaragtay quwadiisa ay daciifayso oo maaragtay quwadiisa ay daciifayso haddana wuxuu gaari doonaa arrin kale oo marxalad kale oo shayba uu noqonayo oday qof ama maaragtay da' oo fil ah uu noqonayo oo markaas ay daciifto marka quwadahaas culimmadu macno kalena way siiyaan oo ah qofka mid physicalna way martaa oo quwad ah oo mar macnihii ay quwadiisa xagga physicalka ee daciifta saan sheegnay ama xagga cilmiga iyo tacliinta iyo horumarka ama ha ahaatay dhinaca science-ka ama technology-ga ama horumarkan aadamaha uu gaaraba marka qofka intuusan waxaan baranba waa daciif markuu barto waxay noqonaysaa maaragtay quwi buu noqonayaa haddana waxaa laga yaabaa technology-gan heerka sare ay gaarto inuu macnihii uusan awoodda ilaahay iyo cilmiga oo akoonkan ku qariyey aysan gaarsiisnayn ay sii daciifaysa marka loo barbar dhigo waxa bini aadamka macnihii la baray iyo waxa koonkan ku qarsoon marka xaalad ay noqotaba xaalad cilmiga bini aadamka maskaxdiisa ha noqoto oo marba heer maraysa oo heer wuxuu gaari xitaa qofka bini aadamka markuu duqoobo uu ku noqonayo ilmihii kale ku noqonayo oo ninkii waxa arkaysa shal injineerka ahaa ama dhakhtarka ahaa ama halyeega geysiga hogaamiyaha ahaa oo maaragtay dadkii iloobay oo magacyadii iloobay oo wax dhan uu soo macnihii uu yaqaanay iloobay oo maaragtay daciif ku noqday xaggii cilmiga mar labaad way gaartaa way imaataa marka walaalayaal waxaa muhiima leenahay xaalad walba qofku inuu ogaado sababtana uu ogaado stageyadan marka bini aadamka waa la qaybiyey dadka maaragtay culamada maaragtay maalan cilmiga oo science-ka ama psychology ku yaqaan ee qaybe ka dhigeen way kala badbadeen 3 8 sida maalan hadda Erikson oo kale ilaa 8 qaybood buu ka dhigay oo ka bilaabay cunuga markuu dhasho ilaa markuu dhinto xaalad walbana uu leeyahay macna fursad bini aadamka hortaala iyo dhibaatooyin bini aadamka hortaala ayaa ku imaanaysa marka waxaan leenahay dhibaatooyinka bini aadamka ku imaada waxay noqon karaan macna ulajeedada laga leeyahay iyo sababta laga leeyahay waxaan kugu soo koobi karaa aan kugu sheegay ilaa 4 qaybood anoo insha Allah taala ku dadajinaya
qaybta koobaad oo bini aadamka ku imaanaysa waa qaybta hadda aan soo sheegnay oo ah mid dabiici ah. waxaa la yidhaahdaa macnihii ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dejiyey qaanuun uu koonkan ku maamulo oo bini aadamka dhanba ay ku qasban yihiin. maalan markaad dhalanaysa adiga wax choice aa lehed ma jirto, maalintaad dhimanaysidna wax macnihii lagaala tashana choice aa leedahay ma laha. waxyaale marka waxaa jira marxaladaha bini aadamka isbedbedelaya oo si dabiiciya uga imaanaya awoodiis ka baxsan isaga waxba uusan ka qaban karin. waana waxaa la yidhaha universal law of human nature. waa universal law of human nature. wuxuu qofka bini aadamka ka qaban karo ma jirto. maalan hadda saan sheegnay qofka bini aadamka ninka ragga inuu murqo yeesho oo codkiisu isbedelo oo qaabka u noqdo ilaahay baa u abuuray. haweeneydoo kale maalan in maaragtay ay qaab kale ay noqoto ilaahay baa subxana wataala ugu talagalay. caadada haween ku dhacdo dhan laga bilaabo xaawa ilaa intuu bini aadam ka jiraayo gabar walba oo dhalata waqtiga ilaahay ugu talagalay markay gaarto macnihii caadadaas way ku dhacaysaa. wax iyada ka qaban karto ma laha. inay macnihii wallaca oo kale xaaladaha uurka kale oo la maro waa aragtay fawshu inay dhib badan tahay ama uurku dhib badan yahay. waxyaalahaasoo kale waa wax hooyo walba ay marayso. bini aadamkana haddii qof ay ku imaato aan lala yaabin. sidoo kale waxyaale waxaa jira dabiici ah oo bini aadamku ilaahay ku kala xukumay. maalan dad inay dheerdheeraadaan, dad inay gaagaabtaan, dad inay caddaadaan, dad inay madoobaan. waxyaale waxaa waaye dabiici ah oo bini aadamka waxba uu ka qaban karin. ay fiican tahay inuu ku qancoba wax walba ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay. qaab walba u ekeysiiyey, suurad walba uu leeyahay, dharar walba uu leeyahay, gaabni walba uu leeyahay, midabadiisa say u ekaadaan. waa inuu qofku ku faraxsan yahay, uu ku qanco. waana suurad rabbi subxana wa tacala ugu talagalay. marka dhibaatooyinka waxyaalahan dabiiciga ay la imaadaan waa wax bini aadamku badanaa ay ka siman yihiin, ay fahmaan oo u dulqaataan. mid waa middaas ina ogsoonaadno ay muhiim tahay. dhibaatada labaad oo imaata oo qofka bini aadamka ku imaata sababta laga leeyahay ay tahay waa midda shakhsiyadda bini aadamka lagu dhiso. dhibaataa kugu imaanaysa. dhibaatadaa laakiin dheef weyn oo waxaa ku jirta adi markaa iyadaa ha fahmin waqtigaas iyada dhibaatada ku haysato, ama waqti ka dambeeya aad fahantid dheefteeda oo aad dhihi karta allah taas dhibaatadii kugu dhacday aad ka mahadiso oo aad alxamdulilah rabbil caalamiin inay taa igu dhacdo macnihii qof ay kaa soo saarto. dhibaatada noocaasa waa midii qaybtii koowaad aan ku soo qeexnay, aan ku sheegnay. waa kownka rabbaaniga rabbi subxaana wa tacaala ugu talagalay oo xitaa ambiyada ilaahay kama baxsadaan. maxaa marka ulajeeda laga leeyahay? waxaa laga leeyahay waxa la yidhahda adiga karakterkaada, shakhsiyadaada lagu dhisaya. waxaana dhacda oo u badan in lagugu diyaarinayo oo dhacdadan kugu dhacdo lagugu diyaarinayo dhacda ka weyn oo la rabo hadhow inaad xamisho u dulqaadato. marka noocyo badan oo alla ku keenaa. aayaddii horaan sheegnaa macnihii qeexiisa oo ilaahay uu leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir asaabiriin. marka ilahay wuxuu leeyahy waa in imtixaamayna oo in imtixaamayna oo in imtixaamayna. maxaynu ku imtixaamaynaa? wax uun ka mid ah cabsida. marka qaybta horaan kusoo qeexnay inta qayb u qaybsanta xaggan kusoo sheegnay. waxaa kaloo lagu imtixaamaya wax la yidhaha gaajo. waxaa lagu imtixaamayaa macnihii hantidii oo lagaa yareeyo. waxaa lagu imtixaamayaa naftii oo lagaa yareeyo. waxaa lagu imtixaamayaa macnihii mirihii oo hadda macnihi dhacdada anagu nagu dhacdo oo kale, maalan abaaraha oo kale. qofka bini aadamka waa dhacdooyinka rabbi subxaana wa tacaala uu bini aadamka uu ku soo saaro uuna ugu talagalay rabbiga subxaana wa tacaala inay bini aadamka ay soo noqdaan, ay rabbigood subxana wa tacala usoo noqdaan. ama noqoshadaas ha noqoto mid macnihii toobadkeen shakhsiya ama mid caama ummadda dhan ku imaata. laakiin wuxuu ilaahay ka leeyahay dhacdooyinka imaanaya in bini aadamka lagu dhiso. waxaan ka garanaysaa aayadda ilahi wuxuu leeyahay wabashir saabiriin. dhacdooyinka qof kastay ku dhacaysaa. haddii dhibaato kugu imaata macnaheedu ma inuu ku jecel yahay ilaahay macnaheedu inuu ku neceb yahay haddii maanta dhib kugu dhacdo. haddaa dheefashin inuu ilaahay ku jecel yahay. laakiin labada waxaa la rabaa midna shukrigeeda inaad la imaatid, midna dulqaadkeeda aad la imaatid. laakiin waa dhab inay dhacayaan oo dhibaatooyinka imaanayaan. sababta laga leeyahayna waxaan dhahnay waa in adiga karakterkaada lagu dhiso. waxaan dhahnay ambiyada ilaahay baa xitaa ka baxsan. tusaalaan ku siinayaa hadhowna markay dhacdooyinka dhinacyada ka imaadaan aan ka soo qaadan doonana waa ku sheegi doonaa. muhiimaddeeda waxa weeye inaad fahantid ambiyada ilaahay tusaalaha ugu fiican oo nolosha bini aadamka macnihii loogu tusaalaystaa ka mid a. ambiyadu waa qudwo, waa iyagaa modelka noo ah, dadka lagu dayda iyaga waayo. qof kasta oo ambiyada marka qur-aanka uu ka hadlayo aad u dhegedhegeeyana
wuxuu ka helayaa dhacdooyin badan ee soo mareen iyo dheefo badan uu ka fahmay uu ka qaadan kara dhacdooyinkooda qodobka saddexaad ee dhibaatada ku imaato sababta ah waxa ay noqotaa waxa weeyaan dhibaato dhacday kana dhalatay dhibaato hore u dhacday kuna dhacda dadka dhibaatadan sameeyey dhibaatadu mar walba macnihii waxay ku noqotaa dadka sameeyey waana mid rabbigan uu leeyahay walaa yahiiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli dadka maarta kibirka badan istikbaaran fil ard ayad salada istikbaaran fil ard wa makra sayyi waxay sameeyaan dadka isla waaweyn oo kibirka iyo qooqaha iyo xasanimada iyo maartay maseerka iyo balaayo cudurrada badan qaba waxay sameeyaan dhibaatooyin badan bay abuuraan dhibaatooyinka ay abuurayaan iyaga markaa waxay leeyihiin aad wax dad ku dishaan ama wax ku yeelaysaan ama ku dhibaataysaan laakiin sunnada rabbaaniga ah oo kowniga ah baa waxay keenaysaa in isaga kusoo noqoto waa midda waddankan ay dhahaan kaarma waddankan dadka ku barxayaan kaarmada heshay kaarmada waxay ka wadaan qofku markuu intuu wax soo xado ay dhibaato kale ku dhacdo ama qof uu dilo wax kale ku dhacdo kaarma la yiraahdaa dhibaato kala ka dhalata oo ku imaanaysa waana meesha rabbi uu leeyahay ya ayuha nnaasu innamaa bagyukum calaa anfusikum dadow dhibaatada aad keenaysaan idinkuba isku keenaysaan waman nakatha fa innamaa yankuthu calaa nafsi qofkii intuu qof la ballamo maalan ama ahdi gala ballankaa ama mid guur ha noqoto ama mid ganacsi ha noqoto ama mid dowlad ha noqotaba ballantii markaas khiyaano iyo marteen iyo dhibaato ku keena hadhow isaga kusoo noqonaysaa marka waxaa la yidhaha dhibaatooyinka kale waa dhibaato qofka dhibaatada abuur ay kusoo noqoto waana sunno kowni ah oo bini aadamka ku imaata marka afartaas macnihii qaybood oo imaata waxa weeyaan waa macnihii waa dhibaatooyinka sababahay ku imaadaan ama ha noqoto sababtii koobaad oo aan dhahnay midda naturalka ah oo bini aadamka dabiic ahaan ugu imaanaysa ama midda labaad oo shakhsiyadda lagu dhisayo ama midda saddexaad oo hadda aan sheegnay oo ah ka dhalanaysa qofka dhibaato wadaha ah oo dhibaatada keena ka dhalanaysa kuna dhalanaysa isaga uusan helay macnihii miraheeda midda afraad ugu dambaysa oo sababaha aan kusoo koobaya ay ku imaato oo la rabo inaad ku baraarugsanaato oo afaanto waxa weeyaan dhibaato ku imaanaysa ciqaab iyo cadaab rabbi qof waa xumaato sameeyey xumaatadaas uu sameeyey ciqaab baa ka dhalanaya cadaab in adduunku lagu cadaabo oo lagu ciqaabo oo dhibaato ay isagoo arko ummadana ka arkaan ay ku imaato tii dambana ay macnaheedu ay u taalo waana mid rabbigan uu leeyahay wala nadhiqannahum min al'adhab al'adna duna al'adhab al'akbar marka isaga qofka la arkaa cadaabkaas dadna waa ku waansamaan oo way ku macnaheedu tala qaataan waana mid aayadda rabbigan gadaal ku sheegay la'allahum yarji'un inay soo noqdaan baa la arkaa qof baa sadma ku dhacaysa dhibaata ku dhacaysa dhibaatada waxay noqon kartaa mid guur waxay noqon kartaa mid ganacsi waxay noqon kartaa mid waxbarasho waxay noqon kartaa mid shakhsiyadeed qof waxa arkaysaa maalan lagu kari waayo tuko maalin buu shil galeen waxa laga yaabaa qof la socday inuu dhib xun gaaray ama dhintayba markaasuu baraarugaya salaadii bilaabaya maalan oo laga yaabo inuu addoon fiicanba markaa ka bacdi uu noqdo ama ma aragtay intuu business ku khasaaro uu ku jabo uu ma aragtay awalna uu naftiisa tala saartay iyo ragitinimadiisa iyo cilmigiisa iyo shakhsiyadiisa iyo anaaniyo badan ay ku jirtay laakiin jab intuu soo maray hoog iyo halaag uu maray ka bacdi isgartoo rabbiga u noqda oo ma aragtay rabbi baryo oo qof markaa toosan noqdo rabbina u toosiyo markaas ama waxay noqon kartaa macnihii qof macnihii saan sheegnay guurka kale uu ka halaabo oo ma aragtay qof isagoo macnihii wanaagsan oo laga yaabo astaantii iyo calaamaadkii la rabay markuu guursanayo inuu ka fakar aan ka fakarin oo naftiisa kaliya tala saartay oo waa la guursaday isaga guursaday ama qabiil ku guurso ama maarta qurux ku guurso ama lacag markaa qiimo qofka markaa uu rabo ku guurso laakiin markii qofka uu guursaday reality ay imaatay noloshii dhabteeda imaatay ay iyadiina ay ka dhalatay dhibaato oo ku noqotay qofka cadaab iyo ciqaab ku noqotay oo markaaba keenta markaa dadka qaarkood ilaahay inuu ku sababo ay maartay ay ku soo baraarugaan ay rabbigooda ugu noqdaan ay u toobad keenaan dadka qaarkoodnaba hadday rabaan gaalnimo iyo dhibaatinta ku sii qaadaan marka cadaabkii weynaa uu ku imaado oo la yaduuna alcadaab alakbar marka ku imaado marka rabbi hana badbaadiyo marka waxa horta sababahaas bay ku imaadaan ay dhibaatooyinku ay ku imaadaan la rabo markii inuu afarta qof uu ku baraarugsanaado oo qof walba dhibaato walba ay dhacdo uu sameeyo afartan qaybood intee ka imaan kartaa isaga marka 10 uu ka qaato aragti cusub oo fiicanna uu ku fiiriyo ficil cusub oo fiicanna uu la imaado keeni karta inuu dhibaatada kaga baxo saahado sheegi doonaba arinta maarta xalka aan ku keeni doono